xafladan maanta ka qabsoontay hoolka degmada Garadag waxay ahayd mid lagu daafurayo shirkad cusub oo magaceeda la yiraahdo Kaaf shaqadeeduna ay tahay Garadag Water and Electricity. shirkadan oo mas'uulka daadihinaya uu ahaa Cali Maxamed Ogle oo dhalashay ahaan ka soo jeeda degmadani Garadag ee gobolka Sanaag kana mid ah qurba joogta degmada ee inta badan ka shaqeeya horumarka magaalada. Cali Maxamed Ogle oo ugu horreyn faahfaahiyay ujeedka iyo sida fiican ee ay wax weyn ugu soo kordhin doonto horumarka degmada. shirkadan Kaaf ee maanta ka daafuray gudaha degmada ay isagoo ka hadlaya arrimahaasi wuxuu yiri halkan ka soo gudbinaya iyo sida ay maartay salaanta iyo maxay to kalsoonida ay ku qabaan inay deegaankooda wax ka qabtaan ubaxkaas Cabdulle iyo Fardoos Maxamed Ogle oo ah dadka hawsha shirkadan wada waxaan inta u dhaafayaa inaan ku dhiiri geliyo dadka qurba jooga deegaanka in ay jiraan fursado ciidan ka badan oo deegaanka yaala haddii loo soo suuq doonanayo waxay leedahay faa'iido tusaale ahaan daanad waxaan ay suuq doon iyo waliba dadku waxay u baahnaayeen waanu soo kordhinay aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa dadka qurba jooga degmada u dhashay inay hawlaha ku dhiiradaan oo ay keenaan mashaariic aan maaragtay xusuusiyo inay jiraan maxay fursado badan oo ka jira degmada Garadag iyo waliba dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan magaaladana way u furan tahay cid kasta waana soo dhaweynaysaa ama ha ka yimaado awdal ama sool gobolku doonaba inta markaan halka ku dhaafo dadweynaha reer Garadag waxay runtii taageero aad iyo aad u ballaaran kale cuqaasha iyo maamulka degmada Garadag ayaa si weyn u soo dhaweeyay kuna amaanay Cali Maxamed Ogle wax qabadkan weyn uu soo gaarsiiyay magaalada Garadag iyagoo dhanka kale sheegay in si weyn loogu baahnaa shirkad guri kasta oo Garadag kamid ah gelinaysa koronto iyo biyo galin u socota waxayna cuqaasha iyo maamulka degmadu iyagoo si farxad leh uguna duceeyay inay soo dhaweeyay shirkadda biyaha iyo korontada ee degmada Garadag ee uu hogaaminayo Cali Maxamed Ogle waxayna iyagoo arrimahaasi ka hadlaya cuqaasha iyo maayirka degmada Garadag yiraahdeen iyo hawlwadeenadeeda waana soo dhaweynaa waxaan leenahay dalku waa dal dhawaan dhashado roobo maalin lama wada dhisinay maalinba mashruuca ku soo kordho quruxuna waxay ku jirtaa inay dadka mashaariicda awoodda u leeyahay mashaariicda gacan geliyaan annagu waxaana soo dhaweeyaashii iyo odayaashii wuxuun la qaban lahaa iyo haddii beedankeeda leeyahay dadka fahamsiintiisii annagu iyo maamulka magaaladuba waanu ka wada shaqeynaa cid allaale ciddii horumar iyo mashruuc horumareed keeni karaysa ama uu jeebkooda ku jiro ku dayso waxay inta kale insha Allah billahi kariim anaguna mar walba soo dhaweeyaan maanta soo dhawaada soo dhawaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ogle Master Form 5 waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa idin la shaqeynayna waa idin baahnayn waxaan leenahay soo dhawaada mashruucan waa kaan u baahnayn waa kaan idin ka sugaynay ilaahay qayr idinkana ha idinka siiyo annagana raggii hore hadalka dhameeyay kuwa u shaqeysaan nololka indhigo inta waxaan ku darayaa shirkad hore oo la yiraahdo ka shaqeysa magaalada waxba yeeri mayso taasuna sideedaba u shaqeynaysaa tan waa mid soo korodhay qodobkana waan wadax gareynaya waa cadeynaya shirkadda Kaafi oo Cali Maxamed Ogle هذه waxyaabaha nolosha asaasiga ah ay ka bilaabato biyaha iyo laydka iyo caafimaadka saddexdaas waa saddexda wax ay ugu muhiimsan ee ay nolosha bini'aadamku ka bilaabato baahi weyn baa saddexda loo qabay inta ka bacdi waxaa maanta sharaf inoo ah inaynu ka soo qayb galno xafladda daafurka shirkadda Kaafi ee biyaha iyo laydka taasoo baahi badan loo qabay dadweynaha degmada Garadag u qabay xafladan ballaaran ee maanta isugu nimid oo ah shirkaddan Kaafi oo ah shirkad baahideena weyn bulsho ahaan Garadag ay u baahnayd oo had iyo goor Garadag waxaan ka caabin jiray biyo adag iyo koronto la'aan gelinta iyo online kala iyo wixii kale horumarka deegaanka ay u soo dooranayso runtii waxa weeye si mugleban u soo dhaweynaa waan uga mahad celinaynaa mulkiilayaasha waana albaab cusub oo furmay oo maalgashi oo u furmay deegaanka cid kasta oo deegaanka maalgashanaysa oo ku soo dooranaysa
gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa haddana bulsho ahaan deegaanka Garadag. ugu dambeyntii waxaa maayirka degmada Garadag iyo hogaamiyaha shirkadani si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta shirkadda Kaafi ee laga hirgeliyay gudaha degmada Garadag. Maxamed Gumburi, wararka Star TV, degmada Garadag.